waxaan isu ku yeedhnay in halkan dhowr qodobo muhiima aanu saxaafadda u sheegno si ay bulshada reer somalilandna ula socdaan howlaha. kow waxaan halkan horta idiin sheegayaa ciidanka biliisku har iyo habeen inay heegan u yihiin gudashada waajibaadkooda qaran oo ah ilaalinta nabadgelyada qaranka somalilan iyo ilaalinta bulshada reer somalilan. dhacda way dhacdaa oo caalamka oo dhan nooc kasta haato dhacda way ka dhacdaa, laakiin marka meesha yaalla waxa weeye dhacdadii dhacday maxaa laga qabtay. fal horena wuu dhici jiray, iminkana wuu dhacay, dibna wuu dhici doona, laakiin maxaa laga qabtay baa imanaysa. taasi waa taa. waxaa kaloo iyana halkan jirtaa in muddooyinkan dambe ilaa bisha 7 laga soo bilaabo dhacdooyin ka dhacay dhowr gobol oo kala duwan ayaan waxay idinka taataaban doonaa iyadoo afhayeenkudii faahfaahin doono. waxaan taliya ahaan anigu halkan idiin sheegayaa iyadoo ay xilligii roobabku bilaabmeen oo wax ilaahay lagu mahadiya ay tahay ay ka curteen gobollada qaarkood dooxina ay jiraan. waxaan dhammaan gaadiidleyda ama darawaliinta ama wadayaasha reer somalilan halkan ku wargelinaya inay ka taxadiraan. waxa saaran mas-uuliyad adag ayaa saaran, dad bay sidaan, hanti bay wadaan, inaanay dooxyada ay ka taxadiraan oona gelin. ciddii si taxadir darraa ama khalada u gasha waxaa laga qaadi doonaa tallaabo sharciga waafaqsan. waayo had iyo jeer nafta bini-aadanku ma gasho biime ama in wax lagu tijaabiyo ayaan halkan ka xasuusinaya wadayaasha reer somalilan. waxa weeye intuu darawalku iyadoo laga yaabo in 20 qof 10 qof 5 qof ilaahu mid sido waxa weeye dee nafuusida oo hantibuu wadaa maaha inuu yidhaho way yaraadeen oo ku tijaabiyo. khataro badan baa ka yimi, horeynu waxyaala badan uga soo joognay. waxaan leeyahay ku wargelinayaa inay aad iyo aad uga taxadiraan. waxaa kaloo halkan gaadiidleyda u sheegaya oo shilalka imanka aad bay bariye dhaweyta u bateen. waxa u sababa waxyaalaha ugu badan waa high speedka iyo moobilada. horena in badan baanu sheegnay. sidaa waxaan idii sheegayaa in mata caasimadda galbeedkeeda iyo berigeeda ilamaa iyo halka darweyne looga leexdo daacar buruq maxaan ku dhahdaa aw barkhadle halkaa ilaa intaasay ku sugan yihiin. haddaad xagga show dhaafto berbera meelo sukadeeda waad ku arkaysaa. xaggan galbeedka way jiraan. waxyaalahaanu tallaabooyinka u qaadnay waxa weeye in horta naf waxaasoo dee ay saacadda ka dhamaatay lama joojin karo. taasi waxa weye wax la joojin kara maaha, laakiin in aanu taxadir badan samayno. dhammaan gobolladana arrintaa waanu gaadhsiinay, waana ku ballaadhin doonaa. markaa tan xusuusinaya maadaama waqti roobaad lagu jiro in ay ka taxadiraan oo ilaaliyaan ciddii si nagla janisa ama taxadar darraa arrintaa u gasha. waxa weeye wixii ka yimaaday fal dembiyeeda waa dusheeda in weynsaa loo ogaadaa. waxaana dadweynaha reer somalilan u sheegayaa oona halkan uga ammaan badan aad iyo aad u badan uga soo jeedinayaa shacabka reer somalilan sida wanaagsan ee muwaadinimada. waxaan odhan karaa iyagaa boliisa oo askara wax kasta oo ay arkaan ama dareen ka galo sidai ciidanka boliiska u soo gaadhsiiyaan. howlaha aanu qabanno gacanta dadweynuhu naga siiyo reer somalilan ayaa u sababa inay sahlanaato in ninka eedaysanaha ah ama dembiilaha ay ciidanka boliisku si fudud u qabtaan. aad iyo aad ayaan shacabka ammaan ugu soo jeedinayaa. waxaana leeyahay waa halkaas oo looga sii kordhiyo. intaasaan sheegayaa. wixii ka dambeeya dhacdooyinkan aan idinku yeedhnay saaka waxaan iyana u digayaa oo iyaga dignin adagaan u jeedinayaa nimanka basasleyda iyo gura caruuraha iskuullada dhigta kuwaasoo dhowr goor horan aan ku hadalay. waayo carruurtiiba wadaan, mas-uuliyad baa saaran, waalidkii ubadkoodii buu ku aaminay. waxaan macallimiinta dugsiyada u soo jeedinayaan ka codsananaa inay gaadiidleyda ku wargeliyaan basaska ee iskuullada inay xawli waa sharcigu uu tilmaamayaa inta magaalada gudaheeda lagu soconayo 100 goor baanu baahinay inay ku dhaqmaan xeerka nabadgelyada wadooyinka ayaan iyagana u soo jeedinayaa. waayo ubad bay mas-uul ka yihiin, dad baa ubadkoodii yidhi qaada iskuulkii geeya, macallimiintii iskuulka bay badanaa joogtaa. waxaana u soo jeedinayaa maamulayaasha dhammaan dugsiyada inay ku wargeliyaan oo u sheegaan darawalka ku socda xawaaro dheer in tallaabo sharciga laga qaadi doono. halkan intaasaan ku odhanayaa. waxaan ku wareejinayaa afhayeenka ciidanka boliiska si uu dhacdooyinkii 7 kan dhacay iyo waxyaalahay ahaayeen
uu idinla socodsiiyo